بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرضي isku soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada mar kale chapter keenya afraad genetics ka balse cashirkiisa shanaad lesson 5 oo aynu ku baranayno common genetic disease maadaama aynu soo baranay habka la isaga hidaraaco ay ku dhacdo waxaanu qaadan doonaa cudurrada ama xanuunada lagu kala hidaraaco iyo waxyaabaha sababa inay dhacdo aynu ku bilownay common genetic disease ku marka hore waxaan isfahansiinaynaa waxa jira linkage ama linked waxa la yiraahdo linkage ku waxaan dhigi karnaa geneska marka ay ku wada yaalaan located on the same chromosome geneska marka ay dhacayaan same chromosome ayaan dhahaynaa they are linked oo ramanonas waxaan u naqaanaa linkage haddaba marka waxaa jira xanuuno xiriir la leh geneska oo waa maxay waxaa jira xanuuno ay qaadaan gene tusaalahaan chromosomeska ee jinsiga waxaa la dhahaa waxaan u kala saarnay chromosomeska aadamuhu inuu leeyahay 46 chromosome markii laga dhigo pair waxay noqonaysaa 23 pair of chromosomes this 23 pair waxay u kala baxayaan laba qaybood 22 kamid ah waxaa la yiraahdaa autosomal ama body ama somatic ayaa la yiraahdaayo waxay noo sameeyay mas'uul noga yihiin jidhkeena inta kale halka chromosomka uu dambeeyay pair of chromosomka uu dambeeyay ee 23aad ee 1 halka ah ee noqon doono chromosomeska jinsiga X iyo Y waxaa la yiraahdaa iyagu sex chromosomes chromosomyada jinsiga way marka hadaba linkage ku waxaan dhahaynaa hadii geneska ay ku yaalaan same chromosome ayaa la hayaa linked xanuunkana hadii uu la xiriiro X linked or ama Y linked inta badan X ayaa qaadee waxaan dhahaynaa sex linked genetic disease ayaan u naqaanaa hadaba waxaan baranaynaa sex linked genes kuwa la xiriira jinsiga nooca jinsiga male iyo female geneska waxaan soo sheegnay same ka ah ee ku yaala hal chromosome isku mid ka ah same chromosome-ku waxaa la yiraahdaa linked either wuxuu noqon karaa X chromosome or ama Y chromosome sidaas daraadeed geneskaasi marka waxaan dhahaynaa sex linked genes inta badani sex linked geneska ama xanuunada jinsiyada la xiriiro nooca jinsiga waxaa qaada X chromosome su'aal Y because the X chromosome is longer than Y chromosome oo meeshii ay iska qabsan lahaayeen ay noqon lahayn homologous this one is X chromosome and this one is Y chromosome halkaas waxay ka yihiin non homologous maadaama non homologous chromosomes ay yihiin waxa uu xambaarayo X this one is X haddaba waxaa jirta markii geneska ay xambaaraan linked geneska ay la xiriiraan in ay xanuunada xambaaraan waxaan baranaynaa characteristicska ama traitska noocyada xanuunada la xiriiro jinsiga bini aadanka waxa laga helaa humanku in ay go'aamiyaan sex linkedska waa X iyo Y chromosomeska nooca xanuunada ay ka imaanayo kuwaas ayaa loo yaqaanaa sex linked characteristics maxaa loo yiri xanuunkani wuxuu la socdaa nooca jinsiga hooyada iyo aabaha tusaale ahaan xanuunaas waxa kamid ah hemophilia oo cashirkeena ku qaadanayno oo laga wado dadka xanuunka genetic-ga qaba aan awood u lahayn in dhiigooda uu sameeyo blood clotting oo ah awood uma lahan inuu dhiigga isxinjireeyo blood clotting agglutination dhiigga markuu dhaawac gaaro ma guntamayo waxa kale oo kamid ah color blindness dadka qaba indhaha awood aan u lahayn normal colorka inay kala soocaan midabka casaanka ah iyo midabka cagaarka ama greenka aan awood u lahayn inay kala soocaan waxa kale kamid ah dadka timaha ku yeesho sanka gudihiisa iyo dhagaha xanuunadaasi dabcan labada kore waa X linked disease kan hoosana waa Y linked disease hemophilia aan ku horbarno waa maxay hemophilia waa genetic disorder waa xanuun ku dhasho genetically muxuu yahay isagu marka waa in which blood takes dhiig wuxuu ku qaadanayaa abnormally si aan caadi ahayn long time to clot
markuu qofka caadiga ah caafimaadka qaba ay dhaawac gaaro waa isla markii uu xinjiroobaya halka qofka hemophiliga cudurka hemophiliga ah cudurka hemophiliyaha qabo isaguna waa hemophilige waxay ku qaadanaysaa waqti dheer in uu dhiiggiisa joogsado maxaa sababay because the clotting factor is not formed sababtoo ah factorieski wax xinjireynaya sida plateletska awood uma lahayn xinjireen ama proteinska laga helay red blood cell hemophilia hadaba marka is transmitted waxa lagu qaadaa through a recessive gene halka isla faano gene-ku waxa uu kala qasaarnay laba oo maxay kala hayeen dominant gene isaga wax shiiqiyo iyo recessive gene shiiqsanaha hadaba xanuunadani waxa sababa recessive gene-ka shiiqsanaha oo waliba yaa xambaaro with the X chromosome y chromosome-ka absolutely ma qaado waxaan ka faa'iideysanaynaa inaan hadhow markaan ka shaqeynayno aynu ka faa'iidno genotype-kan iyo phenotype-kan haddii laba X ay noo soo baxaan X sida boxka kaaga muuqdo X labadooduba ay dusha ka saaran tahay laba H oo capital ah H capital waxay noogu taagan tahay normal qofka caadiga ah H small ka normal gene-ka ama dominant gene H small kuna waa recessive gene waa qofka xanuunka qabo ee hemophiliga ah hemophilic ana isla socono marka hadii laba X oo capital ay dusha noogu karaan waa female labada X laba H capital saaran ma maxay waa normal female waa dhadig caafimaad qaba aan cudurka lahayn hadii 1X H capital iyo H small haday soo baxdana genotype-kan haduu yahay phenotype-ka noo soo baxay maxaan dhahaynaa ku tilmaameynaa waxaan ku tilmaameynaa carrier female oo female maxaa u dhaanay laba X ay wadataa carrierna maxaa u niri sababtoo way ku qarsoon tahay dominant gene-kan oo H-ka normalka ah ayaa waxa ku hoos jiro recessive gene marka waa carrier way u gudbin kartaa dhasheeda hadii aan helno laba X oo labadaba ay saaran tahay laba H small waxaan dhahaynaa hemophilic female waa dhadig xanuunka qaba hadii hadaba halkaas waxa uga baxnay female-ka male-ku laba arin ayuu noqon karaa in uu xanuunka ka caafimaad qabo oo normal yahay iyo inuu cudurka qabo ma noqdo batatan carrier H capital saaran tahay waliba yay raacdaa waxa qaado X ta xambaarto wayda ma xambaarto waa normal male-kaas haduu sidaa yahayna H small H small y-na waa hemophilic xanuunka ayuu qabaa sida kaaga muuqdo boxka tusaale aynu soo qaadana hadaba aynu ka shaqeeyno tusaalahaas meesha idin kaga muuqda shaashada waxay noqonaysaa sida tan soo socdo sida lagu kala hidraacayo xanuunkan hemophiliga ayana ka sheekeynaynaa hadii ay isguursadaan waalid female dhadig carrier dadiga liiri waa qasaba inaan dhahno laba X maadaama female-ku yahay X determination-ka ku soo baran oo carrier waa H capital iyo H small ayaa waxa guursaday normal H capital Y su'aashaas weydiinayna waxa waaye sheeg possible phenotype caruurta ay iska dhali karaan inta ay noqon karaan kuwa hemophiliga kuwa noqon kara normal iyo kuwa carrier waayahay aynu ka shaqeyno habkii aynu soo baranay waxaan uga shaqeysan karnaa testicles sida halka kaaga muuqdo waxaan kale uga shaqeysan karaa Punnett square waayahay aynu uga shaqeyno testicles noo soo qaad X H capital iyo aan kala qaadno X H small kana sidoo kale X H capital iyo Y waa sida caadigeeda hore soo baranay aynu ku sameeyno marka fertilization X maxay noo soo baxay laba X maxaa mid walba dusha ka saaran H capital genotype-kan waa X waa female haye maxaan soo dhahnay markii X laba H capital saarantan waa normal female ilmahani gabar oo caafimaad qabto normal gal aan dhameystiro ay X H capital iyo Y X H capital Y kanina waa normal boy wiil caafimaad qabo kanina soo qaad X dominant gene-ka waa H capital-ka small gene recessive gene-ka waa H small-ka sidaa daraadeed waxaan soo hormarinaynaa dominant gene X H capital Y X H capital X H small kanina waa girl
gabar oo ah carrier xambaarsan kan u dambeeya waa XY XH small y waa boy aynu akhrino marka phenotype waa normal girl gabar caafimaad qabta kanina waa normal boy wiil caafimaad qaba carrier girl gabar xambaarsan iyo hemophilic boy ilmo wiila oo xanuunkii qaba dhiigga aanan xinjiroobayn maxaa inooga soo baxay halkaasi in hooyadu hadday carrier tahay ay ilmaheeda labka ah wiilashu ay xanuunka gudbinayso halka gabdhaheeduna ay noqonayaan normal iyo carrier haddii lagu dhaho marka probability boqolkiiba intee ayay suurtagal ku tahay labadan waalid ay iska dhali karaan ilmo hemophiliga waa 1 2 3 4 waa 1/4 times probability rate 100 divide by 100 divide by 4 100 divide by 4 25 25 times 1 25% ayay boqolkiiba 25 iska dhali karaan ilmo xanuunka qaba waayahay aynu gudubno xanuunka labaad ee la yiraahdo color blindness oo isaguna kamid ah genetic disorderska ee ka dhasha in geneska ka gudbo waalidka ee ilmaha loo gudbinayo sawirkaasi inoo soo baxay waxaa ku muuqdo qofka caafimaadka qaba in tufaax midabkiisu red yahay tufaax midabkiisu red yahay as well as tufaax midabkiisu casaan yahay waa normal qofka caadiga ah ee wax arkayo qaybta hoose waxay u wada muuqataa dadka xanuunka qaba hemophiligu waxaasi oo dhan wada jaalay inay meesha yihiin oo awood uma yeelanayo inuu kala sooco the red color from green color this is known as waxaa loo yaqaanaa xanuunkan color blindnesska green color blindness oo waa maxay waa xaalad qofku uusan awood u lahayn is a condition where a person is unable to distinguish from red color from green color awood uusan u lahayn inuu kala sooco midabka cas iyo midabka greenka aynu mar kale tusaale soo qaadano bal eeg sawirkaasi meesha kaaga muuqdo adigu haddaad tahay qof normal caafimaad qaba waxaa ku muuqato number 71 oo ku qoran green far greena sidaas daraadeed maadaama uu ku muuqdo ma tihid color blindness qofka color blindnesska qaba waxa uu oranayaa halkaas waxba kuma qorna why awood uma lahayn inuu kala sooco numberska iyo backgroundka meesha ku yaal iyadana soo qaadana tusaale sida la isaga hidaraaco xanuunkani waxa uu noqonayaa sida tan soo socoto hadday isguursadaan female oo aan xanuunka qabin oo carrier sidaan sheegnay xanuunkani isaguna waa X-linked disease waa cudurrada X-ta ay xambaarto xarafka waxaan qaadanaynaa hemophilia H capital H small oo qaadanaynaa laakiin kani waa color blindness waxaan qaadanaynaa C capital iyo C small hadduu qofka C capital waa normal oo caafimaad qaba laakiin waxaan nidhi xanuunkan waa recessive gene C small-ka ayaa sababta oo xanuunka color blindness-ka ayuu qabaa aynu shaqeyno marka waxay isguursadeen normal male lab caafimaad qaba normal hadaan waa C capital inaan saarno markaan uga shaqeyno Punnett square maadaama markii hore aan uga shaqeynay testicles Punnett square-ku markaan uga shaqeynayno waxay noqonaysaa sida tan kani waxaan leenahay waa X capital C capital Y kanina waa X C capital iyo X oo ah recessive gene u saaran yahay way maxaa soo baxaya labadan isku garaac waa X C capital iyo X C capital ma wiil ba mise waa gabar ma xanuunka ay qabtaa mise waa normal labadan isku garaac waa X C capital Y ma wiil ba mise waa gabar waa wiil xanuunka miyuu qabaa maya waa normal ay labadan isku garaac waa X dominant gene ka kormarina C capital iyo X C small waa female gabar girl laakiin affected ah oo maxay xanuunka ayay may affected maaha sorry waa carrier xanuunka ayay xambaarsan tahay haye kan noo soo qabo waa X C small Y waa boy oo ah affected maxaa halkaasi ka fahmeynaa halkan waxaan ka baranaynaa in
hooyadu sidoo kale ay soo gudbisay color blindness-ku maxaa yeelay x-ta ay hooyadu marba 2x ay wadataa ilmaheeda ay u gudbinaysaa meesha waxaa nooga soo baxay aan akhrino normal girl normal boy carrier girl iyo color blind boy ilmo indhaha aan awood u lahayn inuu kala saaro greenkii redka waa color blind male ayaa inooga soo baxay iyo male isku marka laba ay noqdeen color blind male iyo carrier male gabdhuhuna maxay noqdeen normal girl female iyo carrier female ugu dambeyn ardayda waxaa laga baahan yahay inay exercise-kan ka soo shaqeysaan haddii ay isgoorsadaan normal man in caadi ah oo caafimaad qaba oo aan xanuunka qabin xanuunka hemophiliga balse uu guursado carrier woman haween xanuunka ku qarsoon yahay iyadoo way caafimaad qabtaa jiinka qarsoonida ayay wadataa adigoo isticmaalaya using genetic cross whether Punnett square or test cross mid ka isticmaale waxaad inooga shaqeysaa hemophilic condition of their children xaaladda hemophiliga dhiigga aan xinjirooben ay qabaan sidoo kale waxaa ka shaqeysaa what is the probability waa maxay ihtimaalka boqolkiiba percentage-ka ay gabdhuhu ku noqon karaan kuwa carrier kan haddaan tusaalahan cashirkan hadda ka shaqeeyo boqolkiiba 25 gabdhuhu waa carrier boqolkiiba 25na waa normal wiilashu boqolkiiba 25 waa normal boqolkiiba 25na waa color blind iyo hemophilic midka ka shaqeynaysa su'aasha labaad waxa laba waalid oo ah Abdi iyo Caasha ayaa waxay iska dhaleen gabar color vision-keedu normal yahay oo caadi ah ee caafimaad qabta laakiin but their daughter gabadhoodii who was a normal ahead had a color blind son waxay dhashay wiil xanuunka color blindness-ka qaba sidoo kale normal son wiil caafimaad qaba iyo an all daughters gabdhaheeduna with normal vision ay caafimaad qabaan adigoo predict gareena marka using genetic diagram adoo isticmaalay show how this is possible say suurtagal ku tahay aabe iyo hooyo caafimaad qaba ay iska dhaleen gabar normal vision caafimaad qabta inay dhasho ilmaheeda wiil xanuunkii qaba iyo wiil normal ah iyo gabdho labadii gabdhood oo normal ah aad iyo aad baa umahadsantihiin dadaal wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu